fadlan haddii aad daarato oo aad aragto muuqaalkan laagta ku bilaab. bismillaahi raxmaani raxiim. awal assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti waxaana wanaagsan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ciyaaraha iyo Jola Media. barnaamijkan waxaad kala socotaan wax walba oo ugu dambeeyay sportska ha ahaadaan kulamo la dheelay, kulamo la filaayo, newsyada, xanta suuqa kala iibsiga, akhbaaraadkii ugu dambeeyay dunida sportska. fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar, like dheh si u gaar asxaab badan. waxaan ku falanqeyn doonaa barnaamijkeena maanta kulankii xalay laga dheelay finalism eena lagu dheelay Wembley Stadium, labada xul ee kala ah Italy vs Argentine wixii dhaxmaray. xalay toole waxaa la baastay kulan xamaasadiisa watay laba naadi oo la aaminsanaa inay yihiin labada horyaal ee ugu sareyso horyaalka qaaradda Yurub iyo horyaalka qaaradda Ameerika. Argentine oo kusoo guuleysatay horyaalkoodii koonfurta Ameerika laga dheelo, iyo Italy oo kusoo guuleysatay Eurogii laga dhigay qaaradda Yurub. labadaas naadi ayaa isleeyahay yaa xoog badan, yaase Yurub iyo Ameerika kubad fiican oo kubad xoog badan kuna guuleysan doonto koobka caawa. balse xalay waxaa dhacday tii aan la ogaa ee ka dhacday Wembley Stadium. jamaahiir badan oo Italy ayaa ku ilmeysay garoonka, halka jamaahiir badan oo Argentinian ah ay ku farxeen waxqabadkii Leo Andres Messi. dhammaan daawadayaasha kulankaas, xiiseeyaasha sportska, matalayaasha kuwa matalayay Argentine, dhammaan mucaashaqiinta kubadda cagta ay u fariisteen kuna daawadeen si raaxo leh kubaddii Leo Andres Messi. Messi ayaa xalay soo bandhigay waxqabadkii ugu sareeyay ka hor ballanqaadkii ayaan hor oo u ballanqaaday naadiga kubadda cagta Paris. ayaan hor ayay ahayd markuu ballanqaaday in xil ciyaareedka soo socdo oo waxqabadkiisii ugu sareeyay ay ku soo laaban doonto Paris Saint-Germain. maxaa yeelay waxa ay haleeyo oo leeyahay koroonihii iyo kasoo tagistii Barcelona, laakiin xalay wuxuu muujiyay inuu diyaar u yahay wax walba oo ku saabsan kulamada soo aadan, ha ahaadaan koob adduunka la dheeli doono sanadkan dabayaaqadiisa iyo horyaalka bilaaban doono Agoostodan faraha nuuso heeso. Leo ayaa xalay waxqabadkiisa inaba caadi ahayn kadib markuu garoonka geeska gees maray, u raaxeeyay banooniga, qabsaday, dhiibay, dhaqaajiyay. Italy oo yaaban ayaa garoonka Wembley ku muujisay waxqabad aan laga filaynin, walow ay tahay xul ka soo haray soo bixista World Cup-ka. laakiin Italy oo aan sidaas si lamid ah laga rajaynayn ayaa xalay qaatay guuldaro weyn, muujiyayna inuu weli yahay xul iska yar, maadaama uu yahay xulkii ku qaaday garoonkii xalay lagu dheelayay Wembley Stadium Euro ku qaaday, laakiin xalay loo awood sheegtay 3 gool iyo waxba. Argentine ayaa ah naadiga kaliya ee aan marnaba laga badin 32 kulan oo xul ah in laga badi waayo. waa natiijo cajaa'ib leh. Argentine ayaana milicsatay bandhigii la yaabka lahaa ee Diego Armando Maradona xilligiisii, walow xilliga Messi uu hadda bilaawday la leeyahay, maadaama fiinaalo badan laga qaaday, haba u badnaatay jil oo 2 jeer ka qaaday. laakiin hadda waxaa muuqata in bandhigii Argentine iyo Lionel Messi ee xuleed inuu dib u soo laabtay. Argentine ayaan la filayay xalay in waxqabad intaasi in ka weyn ay soo bandhigi doonto, walow tii xalay aan meel lagu saadaali karin. Argentine ayaa baraha bulshada qabsatay kadib markay ku guuleysteen koobkii finalism ee u dhaxeeyay labada xulood ee Argentine iyo Italy. Argentine oo maamuusayso Diego Armando Maradonihii ka geeriyooday ka baqtiyay ayaa xalay waxqabad aad iyo aad u sareeya ku muujiyay garoonka Wembley. kulankii ayaana bilowday, waxaana goolka koowaad dhaliyay Lautaro Martinez caawinaad oo ka helay Leo Andres Messi. kubad uu ku soo dhax qaatay ayuu banaanka soo dhigay Lautaro Martinez ayaana dhaliyay goolka koowaad. goolka labaad Lautaro Martinez ayaa caabiyay, waxaana labeeyay. goolka labaadna waxaa caabiyay Lautaro Martinez, waxaana shabaqa gaarsiiyay Angel Di Maria. kubad cajaa'ib lahayd, kubad dhaxbixis ahaa, dhamaystir fiican, dhaxbixis cajiib ayuu ahaa, maadaama Lautaro Martinez oo u dhaxbixiyay Angel Di Maria
Dimari iyo Jelino wada ordayaan Dimari ayaana hormaray kubadana kadib fikir oo max ka dul qaaday goolhayaha Gianluigi Donnarumma Argentina ayaan 2 gool waxba ku hogaamisay waxaa la gaaray waqtigii dhimashada waxaa garoonka soo galay badalka Lionel Messi xidig la dhaho Paulo Dybala oo ku niyajabsan dheelista Argentina iyo safida macalinka oo safayo ayaa waxaa garoonka oo la soo galay burhaantiisii laakiin wax walbo markay dhamaarabeen ayaa kubad uu ka helay saaxiibkiisa Lionel Messi ka hor inta uusan u baasan ayaa shabaq uu gaarsiiyay Paulo Dybala ciyaartan wuxuu ka dhigay 3 gool waxba sidaas ayayna ciyaartii 3-0 ugu dhamaatay waxaana sidaas koobka ugu guuleystay xulka ka soo jeedo America ee Argentina ayaa wili laga badin 32 kulan oo xulka ah xulka kubadda cagta Argentina ayaan wili laga adkaanin tan iyo 3 sano 32 kulan unbeaten ay dhaxda ugu jiraan 32 kulan oo unbeaten ay dhaxda ugu jiraan Argentina inaba banoonigeeda mala saadaali karo waa ay soo laabteen waxayna leeyihiin Argentina Maradona waatana next World Cup ayaa inoo balan oo cad ay dhaheen sidoo kale kulankii xal waxaa laga qoray waxyaabo aad iyo aad u badan Lionel Messi ayaana ku guuleystay xidigii uu fiicnaa garoonka walow gool oosan dhalin laakiin wuxuu caawinaad ku lahaa 2 gool goolkii Martinez iyo goolkii Dybala Leo ayaa muujiyay inuu mar kale yahay xidig sare maadaama uu qaaday koobkii labaad ee xulkiisa maadaama ebel lagu eedeey jiray inuusan xul waxba u qaadin laakiin hadda wuxuu marayaa 2 koob oo caalami koob America iyo koobkii finalism ee lagu maamuusay Maradona eena loo qabanqaabiyay inuu yahay koobka u dhaxeeyo labada xul ee soo qaaday Euro iyo koob America bilooyin gudahood ayay waxay ku qaadeen 2 koob July 2021 ayay qaadeen koob America halka June 2022 ay qaadeen koob finalism ee lagu maamuusay Diego Armando Maradona ciyaarta markay dhamaatay kadib koobkii lagu kala guuleystay De Paul iyo ciyaartoy kale ayaa waxay sameeyeen inay shabaqa goostaan la'aantoodan ma bixi karna ay leeyihiin sidoo kale kulankii xalay waxaa aad iyo aad loogu qiimeeyay loogu qadiray xidiga reer Italy lejanka Italy iyo xidiga kooxda Juventus Giorgio Chiellini oo kubadda cagta ka fariistay heer caalami internationalka xulalka sidoo kale kulankii xalay waxaa laga soo calaamiyay Giorgio Chiellini ayuu ahaa kulankiisii ugu dambeeyay oo u ciyaaray xulka Nerazzurri xulka sidoo kale Giorgio Chiellini ayaa ahaa kulankiisii ugu dambeeyay xalay ee finalism kulan oo u dheelo xulka Italy Chiellini ayaana lagu maamuusay kulankan laguna macsalaameeyay si macsalaameyn ku dhiiran Chiellini ayaa gabi ahaanba u dheelay xulka Italy 186 kulan 50 gool ayuu u dhaliyay kabtan ayuuna ka ahaa wuxuuna u qaaday Euro 2020 Giorgio Chiellini ayaa ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyay ee kubadda cagta caalamiga sidaas ayaana lagu macsalaameeyay sidoo kale xalay waxaa la dheelay kulamo u soo bixista ee World Cup-ka xulka kubadda cagta Scotland oo wax qabad muuqda aan soo bandhigin ayaa gooldar ka qaadatay dhigeeda xulka dagaalka ku jiro dhanka Ruushka Ukraine ayaa 3 gool ugu adkaatay Ukraine ayaa u soo baxday lugta finalka loo magac daray ee la dheeli doona naadi xulka kubadda cagta Sweden Ukraine wax kala helo aan aragno walow xalay Ukraine iyo inteeda kaleba loo dabaaldegay guushii weyneed ay soo hibeeyeen ay soo keeneen xul ciyaartooydooda reer Ukraine oo ugu horeeyo Yarmolenko iyo Shishangaha Manchester City u dheelo ciyaaryahan kasta oo Ukraine ayaa soo qaatay calankooda intaas ayaa ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena hadii aad ku cusub fadlan subscribe saar like si u gaar asxaab badan aad ka mahad celina daawashada muuqaalkan
fadlan like. هذه وما سنت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.